بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaameynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga Sultan Cabdullaahi Maxamuud, macallin ka tirsan macallimiinta dhiga macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge. maanta waxaan rabnaa insha Allah koorso cusub inaynu bilowno hadduu alla idmo insha Allah. koorsadan cusub aynu maanta bilaabayno waxa weeye quick books. hore waa taa soo sheegnay soo sharaxnay financial statementiga nidaamka xisaabaadka muddo badan waa taa soo jirnay. marka maanta waxaan rabnaa applicationka quick bookska inaynu sharaxno. quick bookska sidaan wada ogsoonahay waa maado in badan ay bulshadeena iyo ganacsatada u baahan yihiin, sababtoo ah waa hab system waaye. systemkaasoo software kaasoo u fududeynaya ganacsatada in xisaabaadkooda ay gashadaan businesskooda, ay ogaadaan xaaladda dhaqaale oo kambanigoodu marayo, ay ogaadaan maalintii waxay faa'iideen, ay ogaadaan maalintii waxay khasaareen, ay ogaadaan profit intee leeg bay heleen, iyagoo kala soconaya waxa weeyaan quick bookskooda intii la faa'iiday, wixii la faa'iiday, itemkii laga faa'iiday, dhaqaale intee leeg baa laga faa'iiday, khasaare intee leeg baa na soo gashay, itemyadiisa u xisaabsan yihiin. waa nidaam aanu is oran karno wuxuu ku salaysan yahay basekiisu xisaabaad of accountantiga. ninkii quick books raba waa inuu accountantiga wax ka barta. inta aanu gelin insha Allah inta hore practical baanu bixinaynaa insha Allah. inta hore waa 10 aanu soo diyaarinay oo xoogaa software ah aynu soo diyaarinay insha Allah, laakiin asagoo practical itus oo itaabsiya baruna insha Allah bulshada inaanu la wadaagno. inta aanan quick book aanan bilaabin, marka ugu horeyso shuruudaha lagaaga baahan yahay waxaa kamid ah in aad quick book kugu duuban yahay desktopkaaga ama laptopkaaga hadba computerkaaga inuu kugu duuban yahay, inaad haysato functionada rabta hayso. hadaa rabta solution waxa way 14 ama 15 hadba ka rabta hayso, dib male wax way isku wada eg yihiin insha Allah inaynu soo sharaxno anagoo waliba tus oo itaabsi aan u dhameynayno daalad insha Allah. marka walisto quick book maxaa waaye? quick book lagu sheegayo waa is an accounting software waa nidaam xisaabeed oo ku dhisan software package developed and marketed by the United. waagi hore waxa la oran jiray United waxa la yiraahdo. quick book products are agreed mainly towards small and medium size of the business offered to the private accounting application is why waagi hore nidaamku wax lagu xisaabin jiray waxay ahaayeen mid annual accounting wax loo qaybiyaa labo, mid annual iyo mid software. marka kani waa software package ki waa accounting software ki waa. waagi hore annualka waxa la oran jiray annualka waa la xisaabin jiray buugga qalin baa cash buugga loo qaadan jiray, balance sheetka, income statementiga, double entryga, waxa way cash columnka. intaasba waxa lagu hagaajin jiray ama wax lagu qori jiray buugaag waaweyn oo la yiraahdo manualka ah. waa laga soo gudbay hadda software baa la maraya. marka waa accounting software ku fududeynaya xisaabaadkaaga inay noqdaan kuwa heer sare ah, maalin kastana aad ogaato waxaad faa'iiday waxa khasaaday. sidoo kale waa accounting applications ku fududeynaya basic operations except business payment and manage of the buyer bills. inaad maamusho oo paymentigi ka bixiso, buyer billski lagu lahaa bixiso, mushaharka dadka u qaybiso, waxa weeyaan wixii lagu lahaa deen oo account payable-ka iska bixiso, waxa kala ku soo aruursato billski ku bixiso waaye. sidoo kale haddii aad fahantay quick bookska waa nidaam ama waxa weeyaan waa application ku fududeynaya inaad xisaabaadkaaga ku hormarto. marka xisaabaadkaaga inaad gashato marka laga maarmaan waxa ah haddii aad quick book rabto inaad wax ka ogaato waa inaad accountant-ka wax ka taqaanaa. accounting maxaa waaye? accounting waxa weeye waa nidaamka xisaabeedka lagu xisaabiyo businessyada. accounting waxa la yiraahdaa is language of the business waa language of the business, micnaha waa luqadda furaha ganacsiga waaye. accounting is essential of information with concerned with collecting, waxbuu isku soo ururiyaa, recording waxbuu diiwaangeliyaa oo transactions and reporting wuxuu diyaariyaa reporting iyo warbixino kaasoo ku salaysan financial information related waxa la xiriiraan waliba to business of business unit communication la xiriiraan oo relevant to financial information interest la xiriiraan. haddii aad account rabto waxa way accounting hadda maqashaba waa recording, waa reporting, waa collecting, waa analyzing, waa transactions,
waxaas oo dhan waa lagu qeexa accountiga. waa in marka organization la sameeyaa, wax kastoo la qaadanayo waa in la qoraa, wax kastoo lasoo iibinayo waa in la qoraa, wax kastoo lasii iibinayo waa in la qoraa, wax kasta oo shirkadda ka baxaya iyo wax kasta oo shirkadda soo galaya waa in la qoraa. waa recording baa la yiraahdaa. haddii aadan qorin way kugu adkaanaysaa xaaladda dhaqaale oo companygaaga ku sugan yahay, waa isku dhexwaalanaysaa, waxyaalo kale adhow ku imaanaya. reporting waa inaad samayn kardha, collecting waa inaad samaysaa, wax soo ururisaa, xogtii soo ururisaa, transactionadii soo ururisaa, nidaamkii maaliyadeed soo ururisaa, si hadhow u diyaariso warqadda hantida oo balance sheetka la yiraahdo iyo warqadda khasaaraha iyo faa'iidada income ama profit and loss ka, si loo diyaariyo. marka hore waa in collecting jira, wax la soo ururiyaa, organization recording waa in la jira, waa in wixii la qoraa, kadib reporting waa in la diyaariyaa financial information kaasoo la xiriira businesska. historyga uu soo maray QuickBook was founded 1983 baa la aasaasay. Stock of Corn waxaana laga aasaasay gobolka California ee Mareykanka USA. qaybuu soo kala qaatay, departmentiu soo maray, variation buu soo maray ilaa uu soo gaaray 2008kii ilaa 2009kii ilaa 2012kii 13kii iyo 14kii 15kii soo gaaray. hadba marxalad buu joogay, hadba meel buu joogay, hadba waqti buu joogay. maantana heerkaas uu taagan yahay. waqtiga ugu horeeyay oo la oran jiray waxa la oran jiray wax la yiraahdo Stockholm baa la oran jiray, waxaana base u ahaa dan initial Quaker release to software did not value function ma lahayn, double entry ma lahayn, accounting package initial release QuickBooks waagana waxa la oran jiray those variation waxa la with a base code of the base u ahaa. waagi ugu horeeyay la soo aasaasayo variations ugu horeeyay company baa lagu soo aasaasay. companygaas wuxuu u qaban jiray small business owners ka waxa la yiraahdo, kadib waa soo hormaray, kadib step soo maray, kuwa waxa soo baxay steps oo waxa way variation ko aan dheey waxa fusions koodi wata, double entry koodi wata, QuickBooks koodi analyzing kiisi iyo wixiisi oo dhammaan isku heerkan maanta taaganaayna soo gaaray. stage laha, department laha, marxaladu laha, taariikhdu intaasaan kaga soo koobnay. 1983 in la aasaasay company baana aasaasay si uu ugu horumariyo waa la develop small service kiisa soo u qabto small business owners kiisa ah. sidoo kale QuickBook account software version ku yahay ama waxyaalaha intuu u kala qaybsamo, laakiin qayb baan ka soo qaadan, laakiin inta waa ay ka badan yihiin. waxaa number 1 ku ah QuickBook employee online ka, QuickBook waxa weeye simple starter online, QuickBook Pro edition oo desktop ka, QuickBook Enterprise Solution oo kan u badan oo inta badan la isticmaalo way. ugu yaraan boqolkiiba waxa isticmaala 80 meelaha 80% meelaha waa isticmaalaa. waxa isticmaala QuickBook Enterprise Solution baa la isticmaalaa. sidoo kale QuickBook Pro Solution isna waa jira waa la isticmaalaa. qaybihiisana intaasaan kaga soo qaybnay. sidoo kale waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah imported of the 5 accountant. haddii aad rabto inaad waxa way QuickBook ku shaqaysato oo aad ku xamaalato, waa inaad waxa way 5 account iska qaybtaa. 5 account haddaad ogaato oo ay meelaha ay kala gelayaan, transaction ka soo dhacayo, sida wax loo analyze gareynayo, way ku fududaanaysaa hadhow inaad waxa way QuickBook aad ku shaqaysato ku xamaalato. maxay kala yihiin 5 account? waa account of the asset, account of the liability, account of the equity, account of the revenue, account of expense. 5 account ba base waxay u yihiin QuickBook. sidoo kale hadana waxay base u yihiin accountancy base bay u yihiin. inta hadii aad iska qaybto, aad meel dhigto, transactionada ogaato, qaababka ay u kala galayaan, qaababka loo kala qorayo, qaababka loo analyze gareynayo, waxa tahay very good. waxa tahay qof wax yaqaan, waxa tahay qof wax analyze gareyn kara, waxa tahay qof aan QuickBook laga badan. good. account of the asset, your account of the liability, your account of equity, account of revenue, account of the equity. 5taas maxay u taageen? waa 5ta ugu muhiimsan 5 of accounting markii la leeyahay. saddexda ugu horeeya assetka iyo liability-ga equity-ga waxa laga diyaariyaa ama waxa lagu diyaariyaa warqadda warbixinta balance sheet-ka lagu diyaariyaa. account revenue iyo account expense waxa lagu diyaariyaa warqadda profit and loss baa lagu diyaariyaa. labada qaybta saas loo kala qaadaa. sidoo kale waxyaalaha idinku daraayo waxa kamid ah meelaha ay u kala kordhaan iyo meelaha ay u kala bataan. account of the asset-ka, liability-ga, equity-ga, saddexdaasuba waxa ay ka bataan
liability-ga waxa la yirahda liability-ga, income-ka ama revenue-ga iyo capital-ku saddexdaa waxay u bataan credit-ka u bataan. asset-ka iyo expense-gana waxay u bataan debit-ka. liability-ga oo deyntii ah, revenue dakhli adigu soo galay, iyo capital-ka oo ownerska ah, saddexdaas waxay u bataan credit-ka, debit-kana waa ka yaraadaa. sidoo kale asset-ka, hantida asset-ka iyo expense-ga oo expenditure-kana waxay u bataan debit-ka oo credit-ka waa ka yaraadaan. waa inaad saa u socotaa, waa inaad saa ula socotaa oo saa u qiimeysaa. good. account of the asset, asset-kii baanu hadda rabnaa inaynu saddex baanu qeybinay, current asset, fixed asset iyo intangible asset baanu qeybinay. haddii aanu fiirino horta asset maxaa la yirahdaa? asset waxaa la yiraahdaa waa hantida shirkadda la yiraahdaa Soomaali ahaan. what is the physical surrounding? current asset-ka markaanu rabno insha Allah inaynu sharaxno current asset-ka ama account asset-ka saddexdaas loo qeybiyaa: current asset, fixed asset iyo intangible asset. haddii aanu current asset-ka qaadano number 1, what is a physical surrounding? waa physical surrounding kaas wuxuu ku wareegaya asset-kii. saddexdaas waxaa kamid ah cash-kii, waxaa kamid ah inventory-gii badeecadii, waxaa kamid ah account receivable-kii, waxaa kamid ah cash in hand-gii. waa sawatan loo yiri physical surrounding. physical surrounding waxaa loo yiri cash-kii waa lacagtii shirkadda waxa way loo hayay oo cash in hand-gii ah. inventory-gii waa wixii la soo gadanay. for example oo kale cash bay shirkaddu haysaa, cash-ka waxay ku soo gadaysaa inventory-ga way sii iibinaysaa, lacag bay ka helaysaa. cash hand, account receivable waa wax physical surrounding, waa wax isku xiran oo mareegta la yiraahdo, lifestyle of mareegta la yiraahdo, isku xiran yihiin. cash-kii waxa way inventory lagu soo gadanaya, inventory cash baa la siisanaya, waa physical surrounding waay. sidoo kale fixed asset maxaa la yiraahdaa? fixed asset waxa la waa physical asset, waa hantida dhabta ah oo shirkadu leedahay. tan maxaa loo fixed asset-ka waxyaalaha loogu talagalay maxaa waay? fixed asset-ka waxyaalaha loogu talagalay waxa waaye waa shirkadda, hantida shirkadda oo aan loogu talagelin in la iibiyo, si iyada loogu shaqeeyo, wax looga soo saaro, faa'iido loo helo. waa in nafsad ahaanteeda fixed asset-ka la yiraahdo waay. maxaa kamid ah? waxaa kamid ah dhulkii baa kamid ah, blocks baa kamid ah, building blocks waxa la yiraahdo guryaha iyo hantida lagu ganacsanaya kamid ah, office equipment-ga qalabka xafiiska kamid ah, mashiinkii wax lagu soo saarayay baa kamid ah, kaarkii baabuurtii baa kamid ah. iyaga waxa loogu talagalay inay faa'iido dhalaan, laakiin iyaga maaha inventory la iibinayo, waa physical asset bala. waa for example Soomaali ahaan waxa lagu yiraahdaa hanti maguurta la yiraahdaa. waxa way waa dhulkii, waa meelihii lagu ganacsanayay, waa qalabka lagu ganacsanayay, waa mashiinka lagu ganacsanayay, waa baabuurta lagu ganacsanayay. fixed asset baa la yiraahdaa. intangible asset maxaa la yiraahdaa? intangible asset maxaa la yiraahdaa? waa value of the company-ga, waa qiyamka uu leeyahay company-ga, position oo company-gu joogo, position-ka uu joogo. for example oo kale company-gu waa kici karaa, company-gu khasaaro imaan karaa. marka waxa la leeyahay company-ga sumcad intee leeg buu leeyahay. adduunka waxa ka dhacda intangible asset-ka in shirkadda magaceeda la gato, waa adduunka caalamka ka jira. caalamka markaan ku leeyahay waxa weeye intangible asset-ka way kamid tahay shirkadda magaceeda, maqaamkeeda, positionkeeda, area-geeda ay degan tahay, legalkeeda, code of conduct-geeda, possibility-geeda, intaba waa mid intee sumcad intee la eg bay bulshada ugu jidhaa. intangible asset waaye. waxaa dhici karta in ay marmarka qeybkood ay ka qiimo badan tahay fixed asset iyo current asset-ka lacagta intangible asset-ka laga siiyo, sidii shirkadii Mareykanka oo kale. good. waxaanu ka soo hadalnay asset-kii, haddana maxaanu galaynaa? waxaanu galaynaa liability-gii. liability maxaa waay? liability waxaa la yiraahdaa waa amaahda shirkadda lagu leeyahay waay. there are two types waay, laba aan kala qaadaynaa: current liability iyo long liability waay. current liability maxaa waay? waa liability waa deyn dadkaas oo payment-giisu uu yahay specific time waay, in 1 year or less than 1 year, wax ka yar hal sano ama wax la eg hal sano waay, ama waa inay ka yartahay specific time waaye bilo inay noqoto waa macquul gal. kaas waxaa la yiraahdaa current liability baa la yiraahdaa. long liability waxaa la yiraahdaa waa liability waa deyn more than 1 year ka badan, 5 years, 10 years, 8 years, 2 years, 3 years, 5 years bay noqonaysaa. waa long liability-ga, such bankiga oo kale waxyaalaha laga soo qaatay kamid tahay. iyadana deynta intaasaa loo qeybiyaa. hantidana waa soo sheegnay saddex baa loo qeybiyaa: current asset, fixed asset iyo intangible asset.
liability oo deyntina wax loo qaybiya current liability iyo long liability. waxaan kaloo soo sheegnay waxaan kaloo hadda rabnaa inaan sheegno equity-ga iyo expense-ga. equity maxaa waaye? equity waxaa leeyahay is the value of waxa weeye attributable to owner's authority of capital first start of business. waxaa la yidhahdaa equity or capital waa isku mid. equity waxaa la yidhaahdaa waa dadka hantidan iskala waaye, waa dadka shirkadda iskala waaye, waa dadka waxa weeye first start of the businesska lagu bilaabay dadka hantida iskala waaye. sidoo kale waxaan ku qeexi karna waa difference u dhexeeya total assetka iyo total liability-ga. haddii la kala jaro hantidii guud oo shirkadda iyo amaahdii shirkadda lagu lahaa waxaa soo baxaya equity-gii baa soo baxaya ama capitalki baa soo baxaya oo the company of balance sheet kala yidhahda. expense maxaa la yidhahda? expense waxaa la yidhahdaa waa cost that accrues the part of the company operating activity-giisu waayo, waa kharashka uu companigu gala waayo ama u adeegsado waxa weeye operating waxa la yiraahdo operating activity operation activity u adeegsada waayo howlgalka shaqada ama daily to daily ama activity daily to daily during the specific accounting period waayo, muddo cayiman waqti cayiman waayo. sidoo kale expense-gu sanad kasta expense-ga la galay sanadka laga jaraa. expense-gu maaha waxa weeyaan kharashka uu galay company-gu wey. macquulna ma noqonayso kharash uu company galay in meel kale loo dalaco. waxaa la yirahdaa waa kharashka uu galay company. expense cost accruals waa. sidoo kale waxaanu soo ogaanay bookkeeping wax la yiraahdo. waxaanu rabnaa insha Allah maanta inaynu bookkeeping maxaa waaye? waxan oo dhan haddaad si fiican u fahanto quick book wuxuu ku noqonayaa very fast wax la yiraahdo. aad buu kugu fiicnaanaya sida dhabaliyada entry la kala geliyo, qaababka loo kala geliyo, sida loo qeexo, sida wax loo nidaamiyo, transactionada aan insha Allah ay tusoo intisaabsi aan ku dhigi doono hadduu Allah idmo insha Allah. marka waxaa la rabaa ardayda inay la socdaan, qof kastoo ganacsatada ah, dhammaan ardayda iyo bulshada Soomaali weyn inay si fiican ula socdaan, ay wax akhriyaan, ay barnaamijka la socdaan, wax badan bay ka faa'iido doonaan insha Allah. bookkeeping maxaa waaye? bookkeeping waxa la yiraahdaa waa taa hadda ay soo sheegnay waxa weeye is the recording of financial transaction and is the part of the process with the accounting and business transaction include waa recording. waa taa marka hore soo sheegnay recording reporting financial statement-ga which kaasoo maxaa lagu fiirnay report of balance sheet or income statement-ga waa. wuxuu sameynayaa oo bookkeeping ku shaqadiisu tahay recording inuu diiwaangeliyo qoro wax allaale wixii ka baxaya shirkadda iyo wax allaale wixii soo galaya shirkadda, inuu recording ku sameeyo financial transaction iyo each transaction kastoo dhaca. waa taa hadda soo sheegnay account-kan iyo bookkeeping-ka lagu sheegay shaqadiisa waa 5 account in uu control system ku sameeyo. haddii waxaan ogsoonahay transaction-ku markuu dhaco 2 account buu saameynaya. 2 account inuu kala yaqaan, inuu waxa weeye sida loo kala nidaamin lahaa ogaado. for example oo kale shirkadda waxay soo gadatay baabuur bay soo gadatay, company waa baabuur soo gatay. the buyer of the company the buyer of the company wuxuu soo gatay ama the purchase of the company of the disabled car that use inuu isticmaalo the company inuu isticmaalay from this buyer na waxa laga siiyay 3000 baa laga siiyay, 3000 baa laga siiyay. which of the determining waxa lagu dhihi karaa which of the determining cadday evaluation of trade ku sameeyo lagu dhihi karaa. waa inaad sameysaa baabuur baanu soo gadanay 3000 baanu ka soo bixinay, intee transaction buu saameynaya? 2 transaction buu saameynaya. wuxuu soo car ma soo baabuur ma kaarku muxuu yahay? baabuurtu maxay yihiin? baabuurka iyo dhulka iyo blocks ka wax la ilaahay hantida intaasba waxa la yiraahdaa waa fixed asset waay. marka account-kan wuxuu saameynaya fixed asset iyo muxuu saameynaya iyo cash keenidii labadaas saameynaya. cash-kuna waa naga yaraanaya oo credit ku tagaya, fixed asset keenuna waa noo badanayaayo debit ku tagaya. labada transaction buu saameynaya. maxaa looga baahan yahay bookkeeping-ka inuu diiwaangeliyo recording waxa la yiraahdo sameeyo oo muxuu sameynaya? 2 account buu soo qabanaya. account-ki koowaad magaciisa muxuu ahaa? account-ki koowaad magaciisa waxa weeye hadba account-ka lacagta lagala baxay soo hormarinaysa. waxaa leenahay cash-ka oo lacagta lagala baxay waa cadeynaysaa. maxaa ku cadeynaysaa? car baa leedahay ama waxaa leedahay car baabuur baa la soo gatay, lacagtaasaana lagu soo gatay 3000 ah. waxaana ka muujinaysaa
creditka of the cashka ka muujinaysaa. sidoo kale maxaa sameynaysaa fixed assetkana waa soo qabanaysaa oo maxaa ka muujinaysaa waxa ina soo galay baabuur qiimihiisu yahay 3,000 baan leenahay waana cadaynaynaa maxaana gelinaynaa fixed assetka qaybtiisa debitkaan gelinaynaa. shaqada bookkeeping waaba intaa kale recording inuu sameeyo wixii diiwaan geliyo oo financial transaction inuu sameeyo waana qayb kamid ah processka of accounting qayb kamid ah business transaction ka include maxaa kamid ah in wax la iibiyo purchase in la sameeyo in wax la soo goto sales receipt in wax la aqbalo wixii la iibiyo. maxaan ogsoonahay saleska markaa wax sameeynayo kullama salesku waan ogsoonahay salesku xagee ka bataa walaalo ama macallin oo salesku wuxuu ka bataa creditka debitkana waa ka yaraadaa purchase-kuna debitku ka bataayo creditku waa ka yaraadaa macallin waa inaasaa ula socotaa. iyagu maxay yihiin iyagu ma akooma ilaa hadaa 5 akoon baa soo sheegnay marka purchasing-ka sales receipt-ga cash in column-ka account receivable-ka account payable-ka waxyaalahaas oo dhan waa inaad taqaanaa sida ay wax u saameynayaan transaction-nada dhici kara waxyaalaha loo baahan yahay. double entry rule muxuu yahay double entry rule? double entry rule waxa la yiraahdaa waa double entry rule hadaa waa soo sheegin waa transaction-kii waa principles of the transaction waxa way rule waa lagu qeexay haddii xagga ay wax galaan debitkana waa ay wax galaan haddii creditku wax galaan debitku waa in wax galaan meel baa wax gelinaya meel kana wax ma gelin karo that is waxa way sad effective to why de waxyaalo kale oo inoo soo jeedo adjustment oo kale marka la sameynayo iyagana oo socdaan bookkeeping ku shaqadiisu waa inta casharkan intaas noogu egyahay quick book insha Allah waxaan rabnaa asagoo itusoo intaabsi inaynu soo sharaxno hadda Allah insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلطان عبد الله محمد.